waa subax hore cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka ayaa u diyaarsan in ay soo bandhigaan dhoolatus isugu jira dabrid iyo xirfadaha kala duwan ee ciidanka xoogga dalka ay horay u soo qaateen. deegaanka galgalato ee duleedka magaalada Muqdisho ayay ku diyaarsan yihiin iyagoo ku hubeysan hubka fudud iyo dabaabaadka dagaalka. ciidamadan ayaa in muddo ah loo carbinayay difaaca dalka. goobta waxaa ku sugnaa taliyayaasha ciidamada qalabka sida taliyaha ciidanka xoogga dalka Sareeye Gaas Daahir Aadan Cilmi, abaanduulaha ciidanka xoogga dalka Sareeye Guuto Odawaa Yuusuf Raage, taliyaha ciidanka asluubta Sareeye Guud Bashiir Maxamed Jaamac, taliyaha ciidanka booliska Sareeye Gaas Bashiir Cabdi Maxamed iyo saraakiil kale oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka. abaanduulaha ciidanka xoogga dalka Sareeye Guuto Odawaa Yuusuf Raage ayaa sharaxaad ka bixinaya ujeedka dhoolatuska military ay ciidanka soo bandhigeen. taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, hogaamada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, guud ahaan saraakiil xigeenka alifleyda iyo dableyda, baxda saxaafadda, warbaahinta ciidamada qalabka sida iyo guud ahaan ka soo qaybgalayaasha waxaan ku salaamaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. salaan kadib runtii waxaa farxad weyn oo ah oo mar walba aan runtii aad ugu faraxsanahay muddadii dheereed oo tababarkii noo soo socday iyo muddadii isbuuca aheeday oo halkan hadda aan ku sugannahay oo nooga socda carbisku oo uga socday labada hormood ee ka tirsan ururka 37 ee booliska dableyda ee horinta afaraad iyo horinta saddexaad oo maanta halkan ugu soo gabagaboobay carbiskii halkan uga socday muddada toddobaadka aheeday ka horna soo qaatay waqti dheer soo qaatay tababar kala duwan oo runtii taliya aad ka arki karto muxuu ahaa ii sheeg ay ku dhex jirto sancadoodii ay wataan caafimaadkii ay wataan muxuu ahaa ii sheeg guud ahaan waxyaabihii shakhsiyaad looga baahnaa personalkii looga baahnaa inay ka mid ahaadaan. waxaa farxad weyn oo ah inuu taliya ciidanka xoogga dalka Soomaaliya nagala soo qayb galay xafladan halkaana oo muxuu ahaa ii sheeg aw noogu soo gabagabay doono insha Allah sida aan rajaynayno. waxaa sidoo kale goobtaasi ka hadlay taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed Sareeye Gaas Bashiir Cabdi Maxamed Ameeriko. horta marka hore waxaan mahadcelinayaa taliyaha xoogga dalka Soomaaliyeed General Daahir oo nagu marti qaaday inaan kala soo qayb galno bandhigan maanta la soo bandhigay ee ciidamada soo bandhigeen booliis ahaan waqtiyada adag waa saad la socoteen ciidanka booliska wuxuu la falgalaa xoogga dalka Soomaaliyeed. hadda waxaan ku rajaynaynaa carbis ku xigan haddii Ilaahay raali ka noqdo inay ka soo qayb galo urur ama horin ciidanka booliska oo la falgasha carbis qayb qaadata. taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed Sareeye Guud Bashiir Maxamed Jaamac Keenan ayaa sheegay inay tahay tallaabo horumar leh oo horay loo qaaday. aad iyo aad ayaan taliyaha xoogga dalka Soomaaliyeed General Daahir uga mahadcelinaynaa xafladan muxuu ahaa munaasabadan maanta inuu casuumay oo carbiska ah oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ku soo bandhigayo horumarka ay sameeyeen iyo siday ugu diyaar garoobeen. runtii waxaan maantayna tusteen muxuu ahaa wax niyadda noo dhisa waxaana tusteen ciidankayagii inuu soo noolaanayo, in niyaddeenu soo noolaanayso, qarankeenu inuu soo noolaanayo, difaaceenu inuu soo noolaanayo. annagana Ilaahay nagu samay nafna nagu sii caafimaadna noo kaamila maanta inaanu nimaano indhahayaga ku aragno oonu idinkala qayb galno. waxaanu aragnay hadda horin infantry ah ama ciidanka muxuu ahaa lugta ah iyo horin gawaarida gaashaamana. taariikh waxaan soo marnay dalkaanu ciidamadiisu muxuu ahaa taliyaha xoogga dalka Soomaaliyeed inuu ku socdo hal baabuur qooqana oo 4 askari saaran. maantana waxaan maraynaa inaad soo bandhigtaan horin dhan oo taagiye ah, beebayaal ah, muxuu ahaa hub casri saaran yahay iyo ciidan si farsamaysan oo xirfad ah oo wax soo barteen kaartooyinkii iyo dagaalkii oo marka hore miiskana lagu tusay dhulkana lagu tusay sidoo ciidanku u falgali doono meelaha uu qaban doono si difaaci doono iyo ayadii ficil ahba aanu aragnay. waan idin hambalyeeynaa sidii aan ugu wada hadalnayna insha Allah tacaala. waxaan rajaynaynaa maanta horimaan aragnay marka soo socota inaad guutooyin ma tusi doontaan ayadoo dhammaan ciidamada qalabka sida oo kalena ay kaalintay ku lahaayeen ay ka qaadan doonaan si loo muujiyo midnimada iyo xuduudda qarankan uu leeyahay iyo ciidamada qalabka sida inay hal yihiin
oo markii difaaca dalka noqoto qof kasta waajibka ka saaran ka qaadanayo. gabagabada waxaa halkaasi ka hadlay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Sareegaas Daahir Aadan Cilmi Indhaqarshe waxana uu sheegay in ciidanka inta aysan dagaal gelin loo carbin jiray. marka ugu horeysa waxaa aad iyo aad farxad u leh in aad muujiseen in aad tihiin ciidan dhab ah oo geli kara dagaal waxna difaaci kara. run ahaantii aad bay noo farxad gelisay sidaad u falgasheen falkiina u gasheen saad u samayseen ama ha noqoto ciidanka infantariga ee lugta ku galay ama ha noqoto kii gawaarida gaashaaman. waxayna xasuusinaysaa carbiskii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee jiri jiray intaan dagaalada la gelin. waxaan u maleynayaa kani waa kii ugu horreeyey ciidanka cusub ee hadda sanooyinkan dib loo soo abaabulay ilaa ay carta la sameeyey u malayn maayo ka hor inay dhacday carbis in la sameeyey. marka aad iyo aad baan mahad idinku celinayaa banduulaha iyo madaxda hogaamadana waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin. bilow fiican baan marsiinaynaa ciidankana waxa weeye mar hadduusan carbis samayn marka hore carbisku waa tijaabo qofku waa la tijaabiyaa. haddaadan askariga tijaabin kii gaariga waday kii raadiyaha hayey kii caafimaadka hayey aanad tijaabin marka inaad dagaal hore ka geyso waxaad ku jirtaa waxa la yidhaahdo waa bakhtiyaar nasiib baa tahay. marka ciidanku waxa bakhtiyaar nasiib buu ku dagaalgala. hadda bakhtiyaar nasiib inuu ku dagaalgala maaha waxa way in la tijaabiyey hore loo soo istaajiyo isku xirkiisa iyo sida u ficiltamaan iyo sida u falgalayaan. maanta meeshan waxaa jooga hoggaanka caafimaadka oo u diyaara haddii wax dhacaan sidii loo daaweyn lahaa haddii dhaawacamo haddii dhimasho timaado. waxaa diyaara sancadii oo urur kasta wuxuu leeyahay koox sanca oo haddii miino dhacdo haddii wax dhacdo diyaar ah haddii la garan waayo miinada bixiya. waxaa meesha u diyaara ciidankii lugta oo muujiyey inay weeraraan. muddo 28 sano kadib waa markii ugu horeysay ciidan la carbiyey ay dhoolatus military sameeyaan. maxamed muuse maxamed warbaahinta codka ciidamada qalabka sida